qaar ka mid ah haweenka ka soo jeeda deegaanka Ceeryaan ee koonfurta magaalada Ceerigaabo ayaa kulanay maanta ku yeesheen gudaha magaalada Ceerigaabo waxay ugu horeynba xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi iyo mas'uuliyiinta gobolka Sanaag ugu baaqeen inay wax ka qabtaan xaaladda nabadgelyo darro ee soo wajahday dadka deegaanka Ceeryaan waxayna haweenkani sheegeen in dhibaato iyo handadaad joogto lagu hayo maatada iyo haweenka deegaankaasi iyadoona waxyeello loo geystay qaar ka mid ah qoysaska deegaan halkaasi sidoo kale waxay haweenkani intaasi ku dareen in loo baahan yahay in xukuumaddu tallaabo ka qaado arrintaasi si aanay nabadgelyo darro halkaasi mar kale uga dhicin iyagoo ka hadlaya arrimahaas iyo arrimo kalena waxa hadalladoodii ka mid ahaa gobolka Ceeryaan baanu ka hadlaynaa dhibaatada ka taagan ee nala ku wado beelaha isku adeegsaday maxay ahaytoy halka ciidan beeleedka halka laga sameeyay maxay ahaytoy dhibaatooyinka halka lagaga adeegayo dhibaatada ay halka ka wadaan maalin walba ciidan beeleedka ku samaysteen baanu ka hadlaynaa oo ka baaq ka jeedinaynaa waxaan u diraynaa shanta gobolka nabadgelyada ee gudida waxaan u diraynaa bara saabka gobolka Muuse Biixi madaxweynaha malaama ogoyna kaahin baad malaaka adeegay waxaanu leenahay nabadgelyo darrada halka taala ana ka soo gaadho cadaalad darro xun baa nagu soconaysa weelkii waana la ka daldaloolshay caruuri waa la baacsaday dumarkii xabad baa loo adeegsaday hawshaasi sidaas ay u taagantahay waxaanu ka cabanaynaa labada beelood waa laba beelood oo walaalo aan kala maarmayn dhibaatuna waa dhextaal habeen iyo maalin weer baa socda waxaanu leenahay hadii ilaahay laga baqayo shanta nabadgelyada waa ogin waxaanay ogeyn male hawsha waa loo sheegay warqad ka soo loo keenana lama qaado maxay ahayd cabatinkooda madaxweynaha Muuse Biixi inuu hawsha indhuhu ka qarsaday indhaha u furo oo hawsha degdeg wax uga qabto oo cuqaashu kacdo culimadiinku kacdo ummadda Nabi Maxamed ee danaynaysa islaamka dhiigooda ay kala gaadho deegaanka Ceeryaan waxaanu xukuumadda Soomaaliland u diraynaa baaq oo ku gaarsiinaynaa cod dheer iyo cod gaaban labadaba waxaanu u sheegaynaa deegaanka Ceeryaan inaanay ka jirin wax nabadgelyo ah sidoo gobolka jeelka Ceerigaabo nimankaas oo dhibaatadii halkeedii ka sii waday iyada oo aan waxba laga qaban alaanka inay Ceeryaan tahay xerabeex ciidan beeleed iska degan yahay oo aan cid kale joogin waxaas laga soo hadlay oo dhamiyado ay jiraan jabhadda Ceeryaan ku hubaysan ay sameeyeen in maatooyinka dibadda loogu baxo in guryihii maatooyinkii reerkii gurigiisa nabad ugu soo hoyday afka la iska taago in rasaas lagu bilaabo in hadii ay xukunkeeda leeyahay caruur dumar midna aan loo aabeeyeen qof la diido inuu kaadi tago in weelkii lagu jajabiyo taangiyadii biyaha lagu shubanayo booyadaha xareeda laga dhaansanayo xabado iyo faashash loo adeegsado in beerihii oodna ee raashinka laga goosanayay cagta la mariyo in reero lagu soo raro degaankii guryihii reeruhu yaaleen oo baabuur loo dalbado oo dhinac walba lagaga furo in laga qaxiyay maatadii guryihii laga qaxiyay markii rasaas wax jiifsada la waayay ay qaxeen oo ka carareen caalimka waxaan u sheegaynaa oo baaq ayaga aan u diraynaa galabta in arrinta wax laga qabto oo loo dhaga furnaado oo arrintaasi dhaqso badan wax looga qabto waxaanu nahay haweenweynaha ka soo jeeda deegaanka Ceeryaan waxaanu ku eedeeynaa xukuumadda Muuse Biixi inaanay wax allaaliyo wax ay ka qabatay aanay jirin dhacdada ka soo noqnoqonaysa deegaanka Ceeryaan ee hadda jirtay 7 sano muddo soo noqnoqonaysay aanay wax allaaliyo wax ka qabtay jirin maamulka gobolka Sanaag haduu yahay bara saabka haduu yahay taliye qeybeedka aanay mid walba dhacdada loo keeno ama cabaatinka loo keeno ay dhigaan dockside-ka waxaan leeyahay deegaanka hoos loo eego maxay tahay dhibaatadan taagan hal xalliyo dhibaatada soo noqnoqonaysa waxa laga qabto belo daba la qabtay leedahay hore la qabto malaha waxaan ka codsanayaa gudoomiyaha gobolka Sanaag bara saabka inuu arrinkan wax ka qabto oo hoos u eego arrinka dhibaatada ka taagan deegaanka Ceeryaan wax nabadgelyo aan haysanaa haba yaraatay ma jirto deegaanka Ceeryaan inay ka jirto nabad darro xaqi loo soo xidhay hubkiisa sitayna jeelka lagu soo xidhay in dawladdu sii deysay aanay waxba ka qaban sidiisiiba u socdaa wax laga qabtay male wax dawladdu ka qabatay male alaanka waa nagu soconaya dawladda wax nagu baaqanay degdeg wax ugu qabata hawsha